horreyn stable coin evaluation ama horumarinta lacagaha xasiloon ee digitalka ah. Stable coinku waa lacag digital ah oo cryptocurrency ah oo qiimaheedu uu si joogto ah ugu xiran yahay hantida kale sida dollarka Mareykanka ama dahabka ama xataa algoritmyo gaar ah. markii hore waxaan aqaanay in Mareykanka dollarkiisa ama dahabka uu ku xirnaa, laakiin xataa waxaan ogaaday in algorithm qaarkood ay ku xiran yihiin. marka waxay adeegaan sidii maxay tolay u dhaxaysa dhaqaalaha dhaqameedka ama sidii treasury waxa loo yaqaano iyo suuqyada crypto. tusaale ahaan waxa waa buundo isku xidha lacagtan aynu naqaano dollarkeena ama yuurada iyo cryptocurrency inaad gaadho waa inaad stable coin iibsataa. tusaale ahaan haddii $5 aad rabto inaad coinka BTC ama coin Solana ku iibsato waa inaad aad lacagta $5 stable coin u bedesho kadibna aad iibsato coin ama cryptocurrency aad rabto. marka waa buundo isku xidha lacagahan aynu naqaano iyo lacagta maxay tolay cryptocurrency. okay iyagoo keenaya xasilooni waxa ay fududeeyaan isticmaalka cryptocurrency-gu ganacsiga lacagta dirista iyo adeegyada DeFi-ga. okay haddaba stable coinka intaa hordhac markuu yahay aynu fahnay stable coinku wuxuu yahay bilowgii stable coinkanu eegina taariikh kooban baynu markaa yara dul istaagina. ugu horreyn 2014 baa ugu horreysay stable coinkii ugu horreeya la sameeyey. Tether baana samaysay USDT tan aynu naqaano ayaa la bilaabay, taasoo noqotay stable coinkii ugu horreeyay ee caan noqda waxaana lagu xidhay USD lacagtaas oo la yidhaahdo 1-to-1. tusaale ahaan halka stable coin USDT wuxuu u dhigmaa $1 iyadoo sheegaysa inay keed dhaba ah lagu hayo bangiyo caalam bangiyada dhaqameedka ama bangiyada treasury-ga loo yaqaano caadiga ah ee naqaanay. tusaale ahaan bangi baad geenaysaa $50 milyan wuxuu ku siinayaa wuxuu ku saxiixayaa warqada ah $50 milyan stable coin inaad haysan karto. marka wuxuu ku xidhan yahay lacagta dollarka ee bangiga maxay tolay caada dhaqameedka aynu u lahayn bangiyadii hore maxay tolay uu ku haynayo. 2015 ilaa 2017 stable coins kale ayaa soo baxay sida True USD waxa loo yaqaan TUSD la oran jiray oo loo soo gaabin jiray iyo USD coinka la oran jiray USDC ayaa soo baxay iyadoo laga dareemayo baahida sii kordhaysa ee lacagta xasiloon ee loo isticmaalo suuqyada cryptocurrency. marka 2014 Tether baa inta badan aad u shaqayn jirtay, laakiin 2015 markii Tether ay suuqa baahidii ay wada fulin weyday waxaa soo baxay stable coin kale oo kuwa aan soo sheegnay ay ka mid yahaayeen. 2017 ilaa 2020 maalgashadayaal iyo barnaamijyo badan ayaa bilaabmay in ay u adeegsadaan stable coinka sidii bedel sugan oo ku hortaagan isbedelka qiimaha ee Bitcoin iyo altcoin. okay noocyada haddaba stable coinka ayaan rabnaa inaan yara dul istaagno. kow waxaa jira stable iyo coino kala duwan. waxaa ugu weyn fiat collateralized stable coin mid la yidhaahdo. waxay ku xidhan yahay kaas lacagta dhabta ah sida USD-da, Eurada iyo GBP-ga. tusaale ahaan USDT iyo USDC iyo BUSD waxay ku xidhan yihiin dollarka ama Eurada ama GBP-ga lacagta loo yaqaan. waxa ay waana kayd lagu hayo bangiyada caalamiga aynu naqaano. marka bangi bay lacag u geenayaan fiada kadibna stable coin ayuu bedelayaan. tusaale waxaynu maqalnaa USD shirkadda Craysal waxay daabacday 1 bilyan oo USDT halka bilyan oo lacag ah ayay dhigaysaa bangiga kadibna 1 bilyan bay saa ku daabici kartaa ay ku soo gelin kartaa maxay tolay akoonkeeda. qaybta labaad maxay tolay stable coin waxa loo yaqaanaa crypto maxay tolay collateralized stable coin. ka hore fiat waxa kan waa crypto weeye. kan wuxuu ugu horeeyay uga duwan yahay kii hore waxa damaanad ah oo ah crypto kale sida Ethereum ama BTC. tusaale ahaan stable coinkan wuxuu damaanad yahay Ethereum coin kale ama BTC ayuu dabada ku hayaa. tusaale ahaan DAI coin kale MakerDAI wuxuu coinkaasi dabada ku hayay Ethereum. qiimaha waxaa lagu ilaaliyaa collateral sare iyo smart contractyo. qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa algorithmic stable coin. looma baahna collateral toos ah. qiimaha waxaa lagu maamulaa algorithm iyo supply adjustment waxa loo yaqaan. tusaale ahaan maxay tahay FRAX maxay tahay stable coinka loo yaqaano ama AMPL ka loo yaqaano. waa kuwa halis badan kuwani laakiin oo maxay tahay aad isu bedbedel badan waxay ku xidhan inta badan algorithmkana waxba laga bedbedeli karaa
waxna waa lagu dari karaa mar walba markaa isagu qiimihiisa ma sugnaan karo cabsi badan buu leeyahay qaybta ugu dambeysa waxaa la yidhaha commodity backed stable coin baa la yidhahdaa waana kuwa ku xidhan hanti dabiici ah sida dahabka goldka oo kale tusaale ahaan BAXG ama box goldka waxa loo yaqaan tethel gold baa jira ama XAUAT waxaana garanaya inta badan dadka ka tareergareeya forex marka afartaa nooc oo stable coinku uu qaybsamo ayaa jira laakiin qaybtan inagu inta badan aan adeegsano waa fiat collateralized stable coinka loo yaqaan ee ku xidhan lacagaha USD-da eurada iyo GBP-ga okay waxaynu haddaba u gudbaynaa doorka stable coinka ee maanta 2025 doorku stable coinku ku jiro iyo qiimihiisa okay DeFi-ga markaynu joogno ama decentralized finance-ka stable coinku waa lafdhabarta DeFi-ga laga bilaabo leading ama borrowing ilaa liquidity booliska waxay siiyaan dadka heli kara lacag xasiloon oo ay ku shaqeeyaan tusaale ahaan haddii aad stable coin aanad haysan oo exchange-kaaga aanay ku jirin profilkaaga walletkaagan ujeeda wax stable coini dee coin ma iibsan kartid BTC-na ma iibsan kartid Sui-na ma iibsan kartid Solana ma iibsan kartid waa lafdhabar soo marka xagga decentralized finance marka la joogo waa lafdhabar buuxa ayay yihiin okay xagga remittance-ka iyo lacag dirista caalamiga ah markaynu ka dhex eegno stable coinka sida USDT waxaa si weyn loogu adeegsadaa lacag dirista caalamiga ah khaasatan gobolada sida Africa, Latin America iyo Asia inta badan waxay adeegsadaan lacag diris caalamiga iyo USDT-ga u adeegsadaan oo waxaad arkaysaa qof u diraya lacag USDT-ya sidoo kalena maxay tolay waxaad arkaysaa dukaamo iyo meherado lagaga iibsanayo maxay tolay stable coin USDT-ya ganacsiga iyo e-commerce-ka markaynu eegno waxaa lagu isticmaalaa lacag bixinaha online-ka ah iyadoo aan laga cabsanayn isbeddelka qiimaha sida BTC ama Ethereum haddii aynu isticmaali lahayn kii aynu ugu yeedhnay maxay tolay crypto collateralized stable coin tani suuragal may ahaateen waayo haddii aad caawaad haysato $50 oo USDT-ya oo ku xidhan crypto dabada ku haya BTC caawa 104 bay soo daadatay $50 waxa laga yaabaa $30 caawa isu bedeli lahayd marka waxba kuma iibsateen lacagtaas ilaa wax iibsana kuma anfacdeen laakiin maadaama aanu maxay tolay lacag bixin oo isbeddelka qiimaha aanu ku xidhnayn oo uu ku xidhan yahay fiat waata ku sahlaysa in halkaagii $1 uu caawa uu ahaado si kastoo suuqu u soo daataayo coinanku isu bedbedelaan